gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo ayaa maanta si ballaaran loogu soo dhaweeyay magaalada Caynab ee xarunta gobolka Saraar. Wafdidani oo hogaaminayo gudoomiyaha waxaa ka qayb qaatay bulshada qaybaheeda kala duwan iyo musharaxiinta uga sharaxan xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka Saraar. Waxayna bulshadaasi si ballaaran ugu soo dhaweysay magaalada Caynab ee xarunta gobolka Saraar. Waxaan soo dhaweynaa وفتي بلارن وهجامين مدحوينا مستقبل كدو عبد الرحمن محمد عبد الله هجاميها حسبية iyo saraakiisha xisbiga dhamaanba gudoomiye ku xigeenka labaad dhamaantiin waxaan leeyahay ku soo dhawaada magaalada madaxda gobolka Saraar waxaan doonaynaa xasan dhamaantiin ba waxaan leeyahay ku soo dhawaada magaalada Caynaba iyo caasimadda waxaan doonaynaa gudoomiye inaad xariga nooga jirto xafiiskii labaad gudoomiye inaad nooga jirto xariga xafiiska الرحيم الحمد لله رب العالمين gudoomiye ku soo dhaw xafiisyada gobolka Saraar iyo hogaamiyaha iyo wafdada hogaaminayso يوجامي حرسي يوفتك كل صعطة واحد حركة وشرسها حفيسية ودني قبل كسرار سيبا دقمة عينبا وقدام بينتي هالقاسي وحكى علي قدوميا حزب معارض كاي ودني عبد الرحمن محمد عبد الله عرو وحين يوم هاد عليا بلشدي سيدا بلارن سو دويسي وها نوفر حدينا انه هلكن حركة كجا جرو حفيز كان اركيسان in sida quruxda badan loo bilay musharaxiinta golaha wakiilada iyo golaha deegaanka ee degmada Caynaba waxaan ilaahay uga rajaynaynaa in dadaalkooda ilaahay ku guuleeyo amiin doorashadii waxay nooga hadhay maalmo kooban taageerayaasha faraha badan ee halkan ku sugan waxa looga baahan yahay dadaal fara badan waxa looga baahan yahay qofna inaan codkiisa maalinta habsaamin ee uu ku hubsado sanduuqa ama warqadda loo calaamadinayo musharaxiinta maanta walaal maaha laakiin xafiisku ma furayna waxa la idin keeni doonaa insha Allah waraaqihii muunada ahaa ee lagu codeynayay marka dadka way lagu wacyigeliyo gaar ahaan dadka waayeelka waxna qorin waxna akhriin waxaynu ilaashan doonaa goobaha laga codeynayo oo ay musharaxiintu inoo soo xuleen muraaqibiintii ilaalin lahayd waxaan idin rajaynayaa guul Somaliland ha guulaysato Somaliland ha noolaato musharaxiinteenu ha guulaysteen وعلي هذا ندير علي تاني ورقة تلفزيون كون كيبل مقالة Caynaba